iyadoo maalintii shalay ahayd ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Barre uu ku dhawaaqay soona xushay golihiisa wasiirada ayay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo saaka barbaarta M24 TV ay mikrofoonka la dhex qaaday waxa ay aragtidooda iyo fikirkooda ka dhibteen qaabka ay u arkaan xukuumadda uu soo xushay ra'iisul wasaare Xamse Barre iyo waxyaalaha ay rajaynayaan inay wax weyn ka qabato xukuumaddan cusub. bismillaahi raxmaani raxiim xukuumadda cusub oo lagu dhawaaqay oo ra'iisul wasaare Xamse uu ku dhawaaqay dalka waxa ka jira abaaro dalka waxa ka jira colaado sokeeye dalka waxa ka jira amni darro caasimadii hadda aan joognaba qalqalkeedu iyo amnigeedu aad u xun yahay xukuumadda waxa la rabaa marka howlo badan baa u taalo xukuumadda ma garad oo fara badan oo dalka loo baahan yahay inay la samata bixiyo dalka ma garad ama siyaasadda dibadda ha noqoto ama dalka gudihiisa ha noqotee dalku marka xukuumadda waxaan ka sugaynaa ka rajaynaynaa khayr baan ka sugaynaa kollaytaba wasiirro tayo leh iyo wasiirro aan tayo lahaynna waa ku jiraa ma garatay marka inay wax qabad laga qabto ayaa la rabaa dalku meel xun ayuu taagayaa xaaladdiisa dalku dagaallo sokeeyo ka soo baxay oo burbur ah oo 30 sano ku dhawaad ah oo wiilka dhisho 30 sano uu taagay dadaan dawladda arkina jiro marka dalka inuu horumar gaaro ayaa loo baahan yahay marka waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda cusub khayr wabillahi tawfiiq xukuumadda cusub waa u mahadcelinaynaa waxaana leeyahay wixii wanaaga hala sameeyo wixii hadee waddanka u fiican wixii kale oo wadamada kale daris iyo wax kasta oo leeyahayna adduunku wixii tii hore waxay soo qabatay tan iyo hor socod wanaagsan ayaan leeyahay kulley waxaan u arkaa kulley xukuumad imaatay wixii imaan doonaan ilaahay ka warqabo laakiin hadda wax wanaagsan ayaan u arkaa ما شاء الله آتي أيام فرحنا مدعوينا حسن شيخ محمود وحن جعلنا إن معنا دولة أو زيادة إنه نقطة ما دام معنا أركتنا آتي وفي عنتها السجان وحن ورجينا إن الإلهي قرب كيس قالوا وحن كرجينا رئيس الوزراء أو حكومة يو وزيرك أرمها دبدة وحن كرجينا إن آتي معنا أو دلك آتي أنا وخبطان أنا قرب كوضان نقلنا إلهي قرب كيس على قالوا بسم الله horta way wanaagsan tahay wadanka inuu hadda isbedel fiican sameeyay oo wasiiro cusub la doortay wasiiradaas waxaan rajaynaynaa inay diinta iyo dalka iyo ay ilaaliyaan oo maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadooda ay qayb weyn ay ka qaataan inuu wadanka dhismo oo maxaa la yiraahdaa aad iyo aad ay isbedel wanaagsan ay u sameeyaan si looga daydo dadka dambe ay uga daydaan inay sameeyaan isbedel wanaagsan oo lagu dayan karo sidaas oo kale anaga markaan nahay bajaajley waxa weeyaan waxaan aad u rajaynaynaa in maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha kor u kaco oo aan si fiican shaqadeena aan si wanaagsan aan u qabsano si nidaamsan marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxa weeyaan dalkiina idinka iskale maxaa la yiraahdaa waxaad u qabsataan bari ciyaalkiina dhaxlaayo insha Allah waxa weeyaan kuwa dalkooda iyo dadkooda diintooda xifdiya Ilaahay idinka dhigo isku soo wada duubo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Soomaaliya iyo dalka dibadiisaba ayaa ka rajaynaya xukuumadda cusub ee soo xushay ra'iisul wasaare Xamse Barre in ay wax badan ka qaban doonto qaybaha kala duwan ee baahiyaadka asaasiga ah ee bulshada waa Ibrahim Salmaan Maxamed Hanuuniye iyo Axmed Keena telefishinka caalamiga ee M24 TV bartamaha magaalada Muqdisho.